السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الكسود هذا القناة كنا ما شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله وإلهي مهدي سأقدم بين شيخنا شيخ محمد حسن آدم إمام كنا إمام كمساجد كأبو هريرة أقدم بين وحوها لعدالة الحمد لله ما أنت أيال سوق وقبيه محكمة دي ننكي كويدسنا دنبي وإنه دلي شيخ محمد حسن إلى نحرسته ما أنت أي أشكر عن جوريا إن متقارا إنه dembigaasi geystay dilka foosha xun wuxuu ku eedeysnaa dil afduub iyo wuxuu ku eedeysnaa iyo dhac marka juurigii waxay isku raaceen dil inuu geystay iyo dil fool xun oo mataqaanaa oo ku talagal ah ay isku raaceen marka afduubkii iyo dhacii laakiin mayna isku raacin marka alxamdulilah intaas ayaa mahad ah ilaahay subxaana watacaala mahad iska leh marka ninkii waxaa loo balamiyey mataqaanaa xukunkiisa bisha December 15 ayaa loo balamiyey in la xukumi doono waa guul soo hoyad aan leeyahay mataqaanaa sheekh maxamed xasan familigiisa ugu dambeyn inuu cadaalad helay iyo dhammaan jaaliyadda reer Columbus Ohio waa guul soo hoyatay iyo jamaacada masaajidka Abu Hurayra iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ka walwalsaneed oo mar walba ducada la garab taagneed oo u duceynaysay iyo dhalinyaradii oo mataqaanaa maxkamadda taagnaa mar walba maxkamadda imaanayay mataqaanaa dhammaan jaaliyadda kulli intii maxkamadda kasoo qayb galaysay waa guul soo hooyatay ayaan leeyahay alxamdulilah ilaahay mahadiisa waa ilaahay mar kaleeto aada ugu faraxsanahay maasha allah midda kaleeto haddaan waxaan idinla wadaago ninkan dambiilaha ah ninkaasi dilaaga ah oo lagu magacaabo John Wooden Jr. taariikhdiisa dambiilinimo waxay soo bilaabatay 1994 kii ayuu ninkan dambi galay oo xabsi ayuu galay wuxuu soo qaatay 2 sano oo xabsi ah iyo markuu kasoo baxay dambi kale ayuu galay meel oo haddana wuxuu qaatay xabsi 3 sano ah wuu kasoo baxay dambi kaleeto ayuu galay mataqaanaa sheekh McDonald's ayuu wuxuu ka dhacay lacag $3,200 ayuu McDonald's intuu galay uu ka dhacay waxaana ugu dambeyn lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah 10 sano oo xabsi ah markii uu kasoo baxay 9 bilood ayuu banaanka joogay sheekh intuuna dilin sidaas mataqaanaa sheekeen sheekhi 9 bilood markuu ninkii banaanka joogay sheekhi ayuu mataqaanaa sheekh haddana dilay Allah u naxariistay marka insha Allah waxaan rajeynayaa ninkan in markii la xukumayo oo lagu xukumo xabsi daa'im ah si mar dambeeto oo mataqaanaa dhiig bilaadan uusan u gelin xabsi daa'im ah ayaan rajeynayaa in lagu xukumi doono xukunka waxa waa bisha December 15 bisha 12aad 15 aan dhaho 15 ayaa la xukumi doonaa dhammaan reer Columbus Ohio waxaa laga codsanayaa inay kasoo qayb galaan maalinkaas maxkamadda soo buux dhaafiyaan insha Allah waan salaama intaas ayaa idin la socodsiinaya farxadaas waa farxad alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh